haddii qofka uusan qaweysan nus qarni maxaa ku dhacaya? ninkani si uu u noqdo ninka adduunka ugu wasaqda badan darteeda ayuu nus qarni u quweysan. waa oday Iiraani ah, da'diisuna ay ka weyneed 90 jir marka uu geeriyoonayay. waxa uu ku noolaa tuulada Diska ee koonfurta Iiraan. Amu Xaaji waxa uu ahaa nin aan weligiisa guursan, waayo waxa qalbi jab ku riday gabar uu qalbigiisa ka jeclaa. kadib marka ay diiday gabadhaasi, waxa uu go'aansaday in uu dadka isaga dhaxbaxo. muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay qofaan nus qarni qabeysan. mar kale ku soo dhawaaw muuqaalkeena maanta. Abu Hurayra Allah ka raali noqdee wuxuu ka wariyay nabiga naxariisi nabadgelyo korkiisa ha ahaatee inuu dhahay qof kasta oo muslim ah waxa xaq ku ah in uu qubeysto toddobaadkiiba maalin isagoo dhaqaya madaxiisa ilaa jirkiisa. laakiin maxaa dhacayo haddii qofka uusan qubeysan isbuuc, 2 isbuuc, bil ilaa sanad? ku soo laabo sheekadeena maanta. Amu Xaaji markuu isku dayo in uu tintiisa jaro, waxa uu qaadan jiray dab isagoo gubi jiray. maalin maalmaha ka mid ah dadkii tuuladiisa ayaa isku dayay in ay ku qanciyaan in uu qubeysto, laakiin waxa uu leeyahay ma qubeysan karo waayo waan jiranayaa. waxa uu jeclaa in uu cuno xayawaanka dhintay sida doorada, bisada iyo masaska, isagoo dabku gubi jiray kadibna sidaas ku cuni jiray. dhanka biyaha ma jecla in uu cabo biyaha nadiifka ah, sababtoo ah wuxuu jecel yahay biyaha wasaqaysan, isagoo aaminsan in ay dhibayaan calooshiisa. walow oo mararka qaar la leeyahay waxa uu jeclaa timirta, karootada iyo cabitaanada fudfudud in uu cabo. Amu Xaaji dhanka sigaarka waxa uu shidan jiray 5 sigaar, mararka qaarna wuxuu sigaar ka dhigan jiray qashinka. dhanka xanuunka weligiisa muusan xanuunsan, sababtoo ah tijaabo lagu sameeyay jirkiisa 100% waxa lagu sheegay in uu caafimaad qabo, uuna ka caafimaad badan yahay dadka cunooyinka fiican isticmaalo. waxaa la sheegaa in uu qatar ku ahaa falanqeynta siyaasadda iyo ka hadalka taariikhda. dadku aad ay u xiiseyn jireen la sheekaysigiisa. sanadkii 2022 bilowgiisa ayaa la isku dayay in si qasab ah loogu qabeeyo maadaama uu tabar dhigay. waxa uu geeriyooday isagoo 94 sano jiro 25 Oktoobar 2022. haddii aad intaan nala soo gaartay fadlan muuqaalka la garee. haddii aadan ka mid ahayn asxaabtii hore noogu xirneed fadlan subscribe saaro si aad ugu mid noqoto saaxiibadeena.